ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa dilay Juma Atman Mwingo oo ay ciidamada muddo 2 sano raadinayeen waxaana ninkaas lagu eedeeyay inuu ahaa mid ku caan baxay inuu ismaamulada Mombasa iyo Kwale ee gobolka xeebta dalka Kenya uu ka qoro dhalinyarada ku biiraysa kooxaha argagixisada. ciidamada ammaanka ayaa weeraray guriga qoyskooda oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Lunga balse ugu dambeyn waxa lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Tribi. ninkaas ilaamaha ammaanku ay ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa hawlo la xiriira argagixisanimo. Juma ayaa waxay ciidamadu gacanta ku dhigeen sanadkii 2017 xilligaas oo lagu qabtay waxyaabaha qarxa balse waxa la sheegay in lagu sii daayay damaanad wixii intaasi ka dambeeyay uu baxsaday. eedeysana oo ku dhumaalaysanayay guri ayay saraakiisha ammaanku ku amreen inuu isdhiibo balse uu ka dhagaadeegay waxaana ku hubaysnaa baangad uu doonayo inuu waxyeello ku gaarsiiyo ciidamada hawlgalka ku jiray sida ay sheegeen laamaha ammaanka sidaasna lagu dilay. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in eedeysana labaad oo ay raadinayeen laguna magacaabo Qaasim Nasoro oo uu ka baxsaday god uu ka samaystay gurigiisa gadaashiisa waxaana guriga uu deganaa laga soo helay ilaa iyo 5 baangadood iyo calanka madow ay ku qornaayeen erayo Carabiya sida ay sheegeen laamaha ammaanka. ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxay marar kala duwan soo bandhigeen sawirada iyo magacyada dhalinyarada ay ku eedeeyeen inay xiriir hoose la leeyihiin kooxo ay ku tilmaameen qaswadayaal. Cabdirashiid Obsiye, Cable TV, Nairobi. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaanu hadalaa, isku sina waanu libisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore igu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.